waxaad samaynaysaa haddii ilaahay idmo xabasowdada weliba tasaafida ah ee asalkaaba raadin karaysa haddaad heshid waxaanad samaynaysa inta badan hadda tan quraaradan oo kale igu jirtaa waad arki karaysaa oo caagan yar ee lasoo jiida bay leedahay ku on it. It's really been around for a long time. It's talked about in the Bible. It's talked about in the Quran. It's been used really for everything, because when you think, why could something be used for everything? What our modern science says today is that all of our health challenges today are greatly complicated. igagaana nagu soo biir insha allahu tacaala barnaamijka nagala qayb qaado oo su-aalaha iyo wixii aad qabtanayna weydii mar walbana commentiga noogu reeb wixii ra'yigaaga ama instagramka xagga hoose ku qoran like-ta iyo share-ta iyo subscribe-tana insha allahu tacaala haddaad ka heshid nagu caawi insha allahu tacaala barnaamijkeena maanta aada uma sii dheeraanaya haddii ilaahay idmo ana ugu talagalay bal inaynu marmar soo dhexgelino muuqaalo kaloo arrimaha bulshada ah keena caafimaadka wuxuu ku saabsan yahay ma ka cabanaysa waxaa la yidhahdaa samboorka oo uu keeno xasaasiyad marka maanta daawo yaraan tijaabiye anuu xitaa naftigayga baan doonaya inaan idinla wadaago haddaad ka cabanaysid samboor ama aada leedahay insha allahu tacaala haddaan kana faa-idina insha allahu walaaladaana la wadaag anana noo soo duceey insha allahu tacaala kulley samboorka saad la socotid waa qeyb ka mid ah alerjiga ama waxyaalahan xasaasiyadda la yiraahdo dad badanna markaa ka cabanayaan markaa daawooyin badan baa loo isticmaalaa inkastoon asagu daawo rasmiya lahayn waxyaala kaalmaatiga maahane qofku uu relief ka qaato ama uu ku yar nafiso uu ku maahane daawo rasmi horta kaa kaxaynaysa ma laha samboorka laakiin haddii ilaahay ugu talagalay insha allahu waad ka caafimaadaysaa wax walbana ilaahay baa keena daawadan maanta idiin hayo haddii ilaahay idmo haddaad alerji ku leedahay ama dhibaato kaasoo gaadho ha isticmaalin wax walbana halkan kasoo gudbino mar walba dhakhtar la tasho haddaad alerji ku leedahay daawooyinka ama dhirta mar walba ka taxadar insha allahu tacala waxyaalaha alerji ku leedahay maanta waxaan idiin haya haddii ilaahay idmo daawada yar kulley waan tijaabiyey idina waad isticmaasheen barmalen waad arki karaysaan waa xabadu sawda nabiguna sallallahu alayhi wasallam waatuu yidhi cudur walba daaway ka tahay ilaa geerida maahaan marka insha allahu tacaala samboor haddii aad ka cabanaysid waayo sina hore u sheegnayba daawo rasmiya male waa kaalmaatig daawooyinka inta badan samboorka loo isticmaalo dad badanna way ka cabanayaan inta badan allergic baa keena ama cuntada ha noqoto ama ha noqoto environmentiga ama deegaankaad ku nooshahay ama pollutionka iyo waxa la yiraahdo ama board ama cuntooyinka qaarkeed uu kaaga kaco qofkii waxyaalahaas uu ka mid yahay allergigu samboorku waxyaalahaas dhan uu kaaga kacay haddii ilaahay idmo qayb baarafuunada ka mid oo kale aniga hadda qaybaana baarafuunada isticmaalin baa jirto oo iga kiciya marka waxaad samaynaysaa haddii ilaahay idmo xabasowdada weliba tasaafida ah ee asalkaaba raadin karaysa haddaad heshid waxaanad samaynaysa inta badan hadda tan quraaradan oo kale igu jirtaa waad arki karaysaa oo caagan yar ee lasoo jiida bay leedahay aad kusoo qaadaysid marka taa saafida intaad raadisid weliba aadka u fiican insha allahu baad quraarad yar ku shubaysaa sanka ayaad waxaad samaynaysa inaad laba dhibcood ku shubtid quraarada yaraas hadda sida tan usoo jiidantay oo kale intaasaa u furtid oo kale soo qaadid ama kuwa yaryar oo dawooyinku ka dhamaadeen ama caadi loo iibiyaa jira waad ku shubanaysaa oo la buufiyo sida dawooyinkan asmada iyo wax loo isticmaalo markaad aada leedahay xiiqda oo kale dawooyinkeena laysku buufiyo oo kale marka waxaad isticmaalaysaa quraarada saafida waxaad soo gadanaysaa waxa la yiraahdo xabasowdada saafida quraarad yar ama markii shayga kuu saamaxaad ku shubaysaa subaxdii haddii ilaahay idmo baad ku dhibcinaysaa sankaaga ama waad ku buufinaysaa hal dhibic baad ku buufinaysaa ama hal dhibic baad ku shubaysaa haddaad xasaasiyad leedahay mar walbana ka digtoonow oo haddaad leedahay wax dhibaato kuu keenayo ka digtoonow waan ku leeyahay marka waxaad samaynaysaa hal dhibic baad ku buufinaysaa ama aad ku shubaysaa kadib insha allah isbuuc waad wadaysaa hore loo tijaabiyey culimo badan baad ka hadashay oo xagga dhakhaatiirta caafimaadka iyo dadka daawooyinkaba oo dhakhaatiirteena soomaaliyeed ku jiraan iyo dad ajaanib aad baa loo tijaabiyey daawadaas aad bay u fiican tahay xagga samboorka marka hal dhibic baa saa ugu tuujinaysaa ama waad ku shubaysaa haddii lahayd muddo isbuuca insha allah waanad ka ladnaanaysaa aadna waan u tijaabiyey dawadan insha allahu tacaala xabad sawdadan haddii markaa ilmo yaraadle ilmuhuna uu yaraa doonaysa in isticmaashidoo kale uusan xasaasiyadna ku lahayn mara yar baad u marinaysaa oo kale marka saasaad sanka u saaraysaa ilmuhu hadduu naaska shaqay oo kale naaski xaggiisa saraad marinaysaa kale siduu neeftiisa u jiido hadduu ilmuhu neeftay waa uu leeyahay samboorka iyo waxa marka insha allah intaasan idinla wadaagayay aada iyo aad baanad u mahadsantihiin mar walba wixii ra'yigiin aanana la wadaag barnaamijkanaynu ka wada qayb qaadano haddii laha idmo
mar walba inta badan kale arrimaha bulshada iyo weli gaar ahaan caafimaadkana awood saarnaa marmarna barnaamij kale oo aan soo wadana way jirtaa maalintii axad oo kale inaynu ka yarnasano haddii ilaahay idmo marka aad baad u mahadsantihiin mar walba isticmaal